bulshada ku dhaqan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa waxay soo dhaweeyeen dhalinyarada xilqanty ee hagaajiya halbowlooyinka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waa kuwan bulshada oo arrimahaasi ka hadlay walaal ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga nagu dhaw walaal aad baan mahadsantahay waan ku dhawahay magacaygu Cabdirashiid Salmaan Cabdi aad baan runtii ugu faraxsanahay barnaamijkan dhalinyarada ku dhiiratay ee sameysay runtii waxaan ku oran lahaa maamulka gobolka mas'uuliyiinta maayirka in ay kala qayb qaataan dhalinyarada xilqantay guud ahaan dhalinyarada iyo mas'uuliyiinta gobolkana ku dhiirigeliyaan inay arrintan kala sameeyaan dhalinyarada waxaan leeyahay waa maasantiin fikir wacan baa soo jeediseen dhalinyarada gobolka oo aan ugu horeeyana waxaan rajaynayaa insha Allah inaan kala qayb qaadan doono oo ay bilow noo noqoto maayirka gobolka iyo maayirka xigeenkuna insha Allah ay nagu dhiirigeliyaan oo hoggaan u noqdaan aad baan telefishinka iyo idinkana idinku mahad celinayaa barnaamijkan aad dhiirigelinaysaan runtii marka aad baan dhalinyartaana u amaanayaa ay xushmad iyo wanaag mudan yihiin waad mahadsantahay aad u mahadsantahay aadan walaal ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga nagu bilaabo walaal ku dhawahay magacaygu Cabdijibaar Cabdilaahi Muuse adna wad mahadsantahay way Cabdijibaar sidee baad u aragtaa dhalinyarada xilqantay hagaajisay halbowlooyinka magaalada ma sha Allah wallahi waa arin farxad leh caasimadii waxa laga hayay maayir موجي إن هاجيو ودونيك لكن برعو ما يركيد مورا هلاجي لكن ما شاء الله أنا يريد بس حلقانتي أدري بروح على جهيا دالك دات كارثة دالك كل دات كايوديسا فرحت بيناتي أنا قلنا والله قبلنا إن شاء الله يا كلا قيب قادناس إن شاء الله هون كلا قيب قادنا أنا يريد ما أدري يريد هالكن تاجرنا دمبا إن شاء الله ونديس دونا قبل كيا ما صدق ولا الكسر والتلفزيون كعالمي جننتي في هذا ما قاعد نقول بناء ولا العادي أدنى دوه هيل تفيقنا أدنى سودوانية واي ولا سيدي بدر ترى dhalinyarada xilqaamay hagaajiya halbowlooyinka magaalada bar magacaygu Ibrahim Sulub wallahi dhalinyarta xog badan baan ka hayaa dhalinyartaasna waa dhalinyaro ku dayasho mudan oo gobolka u soo kacay inta yare la qabtay wax weyn bay ku fadhidaa waxa jira abaablo kale oo gobolku leeyahay oo la doonayo in halka laga sii wado waxaan leeyahay aad iyo aad buu arrinkaasi wanaagsan yahay assalaamu alaykum kala qayb qaadan saadigu ha si fiican وانا هرنا ولا قيب قاطي يمكن هو قيب قادنا تلفزيون عالمي انتي فاضه مقعد بلاوي ولا المقعد مختار احمد عبدي وانا كله ساعه بقول قبل ان واي سيده dhalinyarada hagaajisay wadooyinka halbowlaha magaalada Burco walaal maacin wala jinniyo warag wanaagsan wallahi adu ma kala qayb qaadanaysaa hagaajinta si wanaagsan waan kala qayb qaadanaya waad mahadsantahay walaal ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga ku bilaabay waan ku dhawaay walaal magacaygu maxaa caadi Ibrahim maxamed oo sidee dhalinyarada xilqantay ee hagaajisay halbowlooyinka magaalada Burco والله وحنا لي وندي برعو دادالو كسي بديا adigu ma kala qayb qaadanaysaa dhalinyaradaas xilqan aad weyn ma san wala ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga nagu bilaabay walaal ku dhawahay magacaygu Ali Cabdi Xasan way calaw bal waxa noo sheegtay sidee baad aragtaa dhalinyarada magaalada Burco halbowlooyin shaqada hagaajisay aad iyo aad u mahadsan adigu ma kala qayb qaadanaysaa aad iyo aad ma san wala ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga nagu bilaabay sharmaarka sidee baad aragtaa dhalinyarada xilqantay hagaajisay wadooyinka magaalada Burco waxaan si fiican adum kala qayb qaadanaysaa mahadsantahay walaal ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga ku bilaabay waan ku dhawaay walaal magacaygu maxaa caadi Ibrahim maxamed oo sidee aragtaa dhalinyarada xilqantay ee hagaajisay halbowlooyinka magaalada Burco wallahi waxaan leeyahay waan dhigi Burco dadaalo ka sii badiya adigu kala qayb qaadanaysaa dhalinyaradaas xilqan aad weyn walaal ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga nagu bilaabay magacaygu Mar Ismaaciil Xirsi waxaan ku madhagaa Stephen way walaal sidee baad aragtaa dhalinyarada xilqantay ee hagaajiyay halbowlooyinka magaalada Burco ma sha Allah wallahi waa wax dalka iyo dadka loo baahan yahay in xilqaamaan wax lagu mahad celiyo ma sha Allah ban la keep going ilaa aakhirah si socdaan la yade adum kala qayb qaadanaysaa ha waad mahadsantahay ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii fi adoo magacaaga nagu bilaabay waan ku dhawaay walaal magacaygu Farxaan baleeda farxaan sidee baad aragtaa dhalinyarada xilqantay ee hagaajiyay halbowlooyinka magaalada waan horta waa si wanaagsan garanaysa ragaas waa xilqaameen maadaama ragaas ay xilqaameen hadii warragii gobolka u baahnaa garanaysa iyo dalku badday garanaysa marka aad iyo aad bay mahadsan adoo ma kala qayb qaadanaysaa maadaama haydii dhalinyaradii gobolka inaan magaranaysaay horta maan dee ragga qabanqaabada dee kumaan jirin magaranaysa marka maadaama raggaas sameeyeen dee ay noo bilaabeen annaguna magaranaysaa ka mid baan nahay waayo dee dhalinyarada gobolkan waad mahadsantahay walaal ku soo dhaw telefishinka caalamiga intii faado magacaaga noogu bilaabay waan dhawahay magaciiguna waa Shaafic Maxamed Ali Shaafic sidee baad aragtaa dhalinyarada xilqantay ee hagaajiyay halbowlooyinka magaalada Burco wallahi dhalinyaradaas fikir aad u fiican bay sameeyeen waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay inta soo qurayaan lagu joojinay magaaladeenii qashin baa buuxiyay bal dhinaca qashinkana
aan mar soo wada jeesanaan leeyahay oo annagu dhayadana oo ka qayb qaadan kala qayb qaadanaysa si weyn ayuu mahadsantahay walaal ku soo dhaw telefishinka intii fiado magaca ku bilaabay walaal waan dhaweey aniga magacaygu Sudeesilkaas way Sudeesil bal waxaad noo sheegtaa dhalinyarada halkan hagaajisay sideed aragtaa wallahi horta anigu runtii markaan reality ka dhabta ka hadlo horta dhalinyaradan saa u hagaajisay ma garanaysaa way wacanta wallahi horta runtii deenaga way noo fiicantay dhalinyarnimadeeda waayo dee u bixiday dalka soo kordhaaban ay Soomaalikan marka dee si kasta dhig kasta dhan kasta marka dhan kasta loo eego ma garanaysaa dee caalamada waa weyn la tartamayna way adu ma ka qayb qaadan sabjada magaalada Burco la sii wadaysa dhalinyarada sababtoo ah anigu waxaan ay dhalad Soomaaliland wana kuna faanay dalkayga waayo sababtoo ah waan ka qayb geliyaa marka anigu waxaan leeyahay dhalinyaradeena badan dee waxna sii jeesanay soo jeestan leeyo 100% mahadsantahay wala ku soo dhaw telefishinka 90 fiado magaca ku bilaabay wala waan dhawahay aad baan u dhawahay telefishinka 90 fi magaca Muxtaar Timir Muxtaar bal waxa saad warata dhalinyarada hagaajisay wadooyinka halbowlaha magaalada Burco aad baan u dhawaanay horumarka soo koray gobolkeena waan dhiirigelinayaa maxay tahay iska qabsada horumar nooca kale in walaal ku soo dhaw telefishinka 90 fiado magaca ku bilaabay dhaweey walaal waayahay bal saad warata dhalinyarada halkan hagaajisay iyo waliba meelo kamid ah magaalada Burco walaal way wacayn dhalinyaradan waxay dii talent bay leeyihiin wada dhalinyarada waxaana dee meesha hagaajisay bilicda dalka Soomaaliland bade way wacantahay innagana way noo wacayn waliba wana dadkeena aduma kala qayb qaadanaysa ma la hagaajinaysa waan kala qayb qaadanaya mahadsantahay walaal ku soo dhaw magaca telefishinka caalamiga 90 fiado magaca ku bilaabay waan dhaweey walaal magacaygu Cali Cabdi Maxamed Cali Marshal way Cali Marshal bal dhalinyarada halkan hagaajisay iyo waliba qaybaha kale magaalada Burco sidee wada aragtaa dhalinyarada iska suxul qaamo waxaan u arkaa horumar deemka la gaadhay haddu bilaabmo inay ku wadi doonaan mooji marka aduma kala qayb qaadanaysa anigu wixii wanaagsan war ka qayb qaadanayna waa mahadsantahay walaal ku soo dhaw telefishinka caalamiga 90 fiado magaca ku bilaabay waa ku dhawahay walaal magacayna Axmed Ibrahim Cabdullaah Balile أحمد أبو الصاد أرتاح دلنيرة هكذا ودون كالبوليه مقالة برعو والله وحنا أركض دلنيرة قال يهو ولا تودن كأو إلى هاي وصل سرايو هكذا شيء نسوي دن كده مركز هذا مخلق بقعدة نسر دلنيرة طبعا وحي وعنا أنا أركض سيدنا وكلا يوحي كسي ونكسب وكلا بقعدة نوايا ده ضل كباب وبحر أيوة ما تصل ولا كسر تلفزيون عالمي قلنا أنت في هذا مقعد كسب بلاد مقعد شخص مرة إن دي لا كده يو مقعد في حالنا 90 في وسلام يا وف محرسي هاي سيفي عمو شقيا ويا بل صدر تدلنيرة هكذا شيء البولياش مقالة برعو والله سيفي عمو وركس شرف له ورك والله كلا قيب قاعدين صادق دي لا كده ها كلا قيب قاعدين أيوة ما تصل ولا كسر تلفزيون عالمي قلنا أنت في هذا مقعد بلاد شاكر محمد حسن وشاكر وسيدي بدر تدلنيرة السنة هكذا شيء البولياش مقالة برعو والله سيفي عمو ورك والله كيف يا سيفي عمو ورك الحمد لله دودك ودي السنيان أظن كلا قيب قاعدين أنا وها سيدا بعضو النقلات تدو تلفزيون عالمي قلنا أنت في هذا مقعد بلاد والله كله هي أديات بعض ما صنتهاي مقعد عبسيد حسن محمد ولا واحد سيدي بدر تدلنيرة هكذا شيء ودوين كمقالة برعو ويستحل قامة والله السيول يكسبون واركا ما دام ودي دلنيرada ay tahay oo wixii dalka deynay waxaan dhahay wax la qabsado wadanka la iska hagaajiyo aad bay wanaagsan tahay aniga raayayga saaxib aduma kala qayb qaadanaysa insha Allah jecel saaxiibna kala qayb qaatay waad mahadsantahay bulshada magaalada Burco ku dhaqanaya soo dhaweeyay dhalinyarta isxil qaatay waxaana sheegeen inay la shaqeyn doonaan Muxtaar Maxamed Cabdi Silaanyo iyo waliba sawir qaadi Maxamed telefishinka caalamiga 90 gudaha magaalada Burco